rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaan waxaa la gaari doonaa inay yimaadaan qoom banaysan doona xariirta iyo zinada, qamrada iyo macaasifta, waa muusika iyo heesaha, aad iyo aad u jecel. maanta haddaad dhahdo iska dhaaf nafsadeydan ugu raaxaynaa, saasay taagan tahay. waxaan noqonaa qof waxaan rabaa inaan qalbiga ku dejiyo, waxaan rabaa buuqa ahay inaan isaga dejiyo. war waxa qalbiga lagu dejiyo, waxa maskaxda lagu dejiyo waa ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala. alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub. ilaahay dikrigiisa ayuu qalbiga ku xasilaa oo qalbiga ku degaa oo qalbiga ku xaysmaa. war haddaad rabto inaad nafsadaada wax ugu raaxayso, diinta alla ugu raaxay. war haddaad rabto inaad nafsadaada dejiso, dikriga alla ku deji. haddaad rabto inaad horumar gaarsiiso, diinta alla ku hormari. haddaad rabto inaad qiimo iyo wanaag u yeesho, kitaabka alluu ku jiraa wanaaga iyo qiimaha ee sameey. nafsadeydaan u raaxaynaa, maalmaha yare adduunka aan joogaan ka faa'iidaysanaa. hadallada lagu hadlayo waa hadal kaafirnimo ah, waa hadal diinka bax ah, waa hadal ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa looga gaarayo burbur iyo khasaare iyo weyl iyo halaag. xataa waxaa dhacday gobol ayay ka mida inay cajalad soo qaadaan ay rikoor ka geliyaan, markay daaraan ay qur'aan noqoto horey ay ka demiyaan oo ay yidhaahdaan waxaan u malaynaynay heesta fulaano la yidhaahdo, waxaan u malaynayay fanaanadii heblaayo, waxaan u malaynayay fanaankii hebel. war jannada alla muu ku gelinaa? war diinta alla maxaad u raaci weysay? maxaad xaqa ugu socon weysay? war waalidow gabdhaha qabta, dhallinyarada qabta oo u sheega waxa ay ku socdaan wax diinta ilaahayna amartay inaysan ahayn. diinta ilaahay aad ha loogu dadaalo. wallaahi maanta waxaan ku sifownay dadkii diinta ilaahay marka loo daaro ama loo aqriyo ku buuqi jiray oo heesaha iyo waxyaabaha kale ku samayn jiray. sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala, dadka waxaa ka mida ama kaafiriintu ay yidhaahdeen laa tasmacuu lihada alqur'aan, qur'aankan ha dhegaysanina, war qur'aankan ha maqlina. ee haddii aad aragtaan qur'aankiioo la aqrinayo walqaw fiih, ku buuqa oo ku qayliya lacallakum taglibuun, inaad ka guulaysataan ayaa dhici kartee. waad u jeedaa maanta meel kasta mar, meelaha biyaha laga cabayo mar, waxa ka daaran waa heeso aan aqoonin meel allaala meesha ay ka yimideen. baabuurada gobolka mida markaad galto waad aragtay sida xaaladeedu ay tahay. intii ilaahay waxaan ku bedelanay qinaha iyo heesaha, waa u riyaaqnaa. qaaraa ku qushuuca, qaaraa indhahooda biyo uga yimaada, qaaraa waxaad u malaysaaba in jannadii ilaahay loo ballanqaaday subxaanahu wa tacaala. war laydiinma ballanqaadin in allaala intaad ku jirtaan waxyaabaha rabbi diiday, ilaa aan kitaabka rabbi u soo noqono oo asaga aan dhegaysano oon ku dhaqanno oon ku camal falno maahane ilaahay agtiisa wanaag ku gaari mayno subxaanahu wa tacaala. war gabadha dukaanka gadaysay cajalada heeskaa ka bixi, hana daaranin ee diinta ilaahay daara ee dhegayso si raxmad iyo wanaag aad u hesho. gabadha shaaha gadaysay rabbigaa ka cabsay, cajalada heestaa jooji ee ka bixi ee diinta ilaahay ku bedela subxaanahu wa tacaala. war ninka saa'iqa ah ee baabuurka wadow ka bixi cajalada xun ee ku jirta ee waxaad ku bedelataa diinta alla subxaanahu wa tacaala iyo maxal kastaoo maxalaadka laga daaro heesaha markaa ka mid ah. maca daalika dhibaatadana haysata ilmaha yaryarkaad arkaysaa raadiya marka uu heesaayo inay ka daba heesaanay uga qaadaan hal xaraf oo diineedna aysan keri karin, diinta alla aysan qarin karin, aqrin karin, qalbigooda aysan ka fasiri karin, ku tadabburaynin. saasaad markaa arkaysaa. maca daalika canugaa yariiskaa ma aha dadaal uu u galay ila raadiyihii waa hees. war walaalayaal haddaad dhimataan cajalihiina heesaha laydinla duugi maayo, qabriga laydinla gelin maayo, waxay idin anfacayaan ma jiro. war rasuulka ilaahay diintuu idin keenay barta, war aayadaha ilaahay ku dhaqma oo ku camal fala, war diinta ilaahay kor u qaada. rabbi hortiisaa la tegaa, waa lays xisaabayaa. fanaaniinta kulli dhinac ayaa loo bixin doonaa, in allaale intii raacday oo ay dhumiyeen dhinac ayaa loo bixin doonaa. way raaci doonaan oo waxay dhihi doonaan ilaahayow kuwaan ayaa na soo dhumiyey, ilaahayow kuwaan ayaa jidkii toosnaa naga leexiyey, ilaahayow kuwaan ayaa sidaana yeelay, hana qabsaninay idin leeyihiin. annagu awood aan idinku dhumina ma lahayn, annagu ma lahayn wax sultaana iyo xujo aan idiin keensanay, annagu ma jiro waxyaabo awood ah aan lahayn, idinkaana soo raacay. annagana soo raaca idinma dhihin, waan idin wacnay idinkaana ajiibay. war maantaana dagaalinee naftiina dagaala,
naftaadaad dagaalaysaa qiyaamaha marka la gaaro. adiga ayaa qowmamo iyo shalay geli doona. adiga ayaa dhihi doona maxaa kuu geeyey waxaan samayntooda, dhegaysigooda maxaa kuu geeyey. marka malaa'igta la amra inay ku qabato oo ay ku jiido oo cadaabka lagu geeyo, maalinta noocaas ayaa kuu soo gurmanaayo. qabiil maad isku halaynaysaa oo kuu soo gurmanaya ma jiro. xoolo maad isku halaynaysaa aad isku furanaysa malaha. owlaad maad isku halaynaysaa aad ku furanayo kaa badbaadinayo ma jirto. war meeshaa ma jira ilaa qofka diinka alla raaca maahane subxaanahu wa tacaala. haddaad isleedahay qabiil ayaa kuu soo gurmanaya oo wax kuu anfacaya oo wax kuu tari doona, rabbi muxuu yidhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun. nasab sheegasho, qabiil sheegasho, isu soo gurmasho ma jirta dhexdooda, mana isi su'aalayaan.